ninka geedka ka fura wallahi billahi tallahi midkaxun ay dhale midkaxun ay dhale cali macallin oo la leeyahay maanta waa la xukumay oo dil toogashaha tiirka loo wadaa iskoolka la sheegay magaciisa iskool bulsiye miyo wax la leeyahay waa loo wadaa ikan bal tageeyo ku toogto amarkaas fuliyo bal ninkaas la ogaad awanimo hataa meesha joogtid kabra kugu gelin ninka halaaba maahan aniga nin habar gidiran maahi kaamiradan iga duniyo iga daminiyo baash ariya ma istaagna hadda anigu habar gidiran ma ninka soo wadan yaa nagu dhigi kara yaa on dhaqaaqna ba xilliga saac hadda anigu taman wiil hadaa helo horaan ka dhaqaaq shaqaale anaga idinka waa isku kaana madax badneeyay indhihiisa hadaan arka yaa waa loo argoof inoo ninka habar gidirta oo amaanta leeyahay tiirkan ku xorayna waa toogayna ka joogan leeyahay shaqaal waa la eeda war shaqaal yaa la taliyo war yaa nimanka qabashadooda laha war yaa la talsha maanta ay tali la gudboonta markii biri 30 ama 20 ama 40 taala la arko yaa dil ma naqaan yaa horta ayaga xasuusad doona rag badan oo maanta nool sariiraha ku jiifo baabuur cad ku raaxaysa yaa aqra u socdo oo ninkaas sabab noqon doona maanta tiirka loo shaqaal u wado sabab u noqo nimanka shaqaal shaqayha oo lafaha yar yar hawiyaha soo dira oo la kuwa waaweyn ku jabshay la famarooda ayaga la isku jabshay daaradu waa daarad waan ogahay taas anigu waa ogahay ana waxaan ogahay lacag hawiye inuu daarad ka buuxan ogahay qofkii ay dhibe oo habar gidire oo ka xun oo arintaas ka xun oo habar gidir ah oo dhiig habar gidir oo ku jiro arintan si sheer gareeyo warkiyaas hadda halka la gaarsiiyo sheerta hataabto meel walba hal la geeyo waa qofkii ka xun arintaas kan waxa uu ka dhashay nimanka habar gidir la yiraahdo oo muslim iyo gaalo qof aan aqoon ogsan jirin oo ka dhashay gaal Mareykan oo jooga geesta adduunka waa yaqaan habar gidir muslim joogana iska badaa nimankaas ka dhashay hadana nimanka ugu sii adag oo aan qoslin oo gowsaha aan kala qaadin oo Salmaan liiraw ka dhashay war maalinay maantay ay nin joogtay gabar joogtay hadii laga tali waayo maalinkay boqolaal noqoto miya laga tali doona arintaas anigu waxaan leeyahay dib hal looga laabto wiil gabar gubayna waxa leeyahay intaas ummadaha la isugu keenay war fiiriyo ay wala toogahay maxkamadu taagan yahay saas yeelooy horta midaas waxay la muuqataa habar gidir nacaybka ahay u muuqataa waa habar gidir nacaybku taasoo ku tusaa ninkii shal habar gidir oo reer saacado layla kasay tooga naagaha laga adeejiyo nimankii dhahan anigu dilmeen anigu ka shaqeeyay inta u soo qabteen wax ka hadla iyo wax soo qabtay iyo dadkii saas wax maxkamad soo taagay dawladda Soomaaliya iyo dadka wax garta iyo maxkamadda ruuxadeeda hal qof oo ninkii soo dadkii hal soo qabtay hal keeno oo maxkamad soo taagay ma ay ragun ninkaana ilaa waxa la sii raadayay baxdo iyo Salmaan bartankiis la sii gooba inta xamar ka soo carab ay maqle kuwa dogob saas darshal ku yeelayaan wax ka qabaa lama arko wariyada meesha habar gidir nacaybkeeda ka muuqdee cadaaladu kama muuqato sax ahrin kama muuqato meeshaan rabaa inaan ka hadlo anoo cali dheere aamidiyo maanta uga soo muuqday oo aan rabaa inaan ka hadlo ninka la yiraahdo Said Cali arintiis warka Said Cali wax badan oo yaalay caalamka iyo isgaarsiinta iyo meel walba oo dhan waxaa dhintay gabar la yiraahdo Luul Cabdicasiis Allah u raxmadan leenahay ninaana lagu eedeeyha wax caday kara aan la arag oo saakay marqaati ku furi kara cad inuu asoo gacantiisa ku ajalay aan la arag ayaa lagu eedeeyha maxkamada la geeyay marqaatiyaal macnaha aan sidii la rabay aan ugu hadlayna la soo qabtay waxaa dar maqla ninkii waxa lagu xukumay dil toogasho ayaa lagu xukumay dilkaas toogashada sida anigu ninkaas maxkamadda ay ugu xukuntay waa fahmi waayay sababtoo qof aan marqaati daba socon oo marqaati lahayn ana cadeynaya gabadhaas markuu gaaska ku shubay oo taraqa uu ku dhajaayay oo holucu ku fakaday aniga cadayha hal qof oo leh ma jiro qof la gaasa uu sii watay gabadhoo gubeehan aragnay sheekadaas qof sheega mooyaan hal qof oo dhehayda maanta ana arkaya markuu gaaska inta ku shubay gabadhaas taraqa ninkan ku dhajiyay ma jiro saasa marqaati cad loo arag dilaa likii lagu xukumay ali
maxkamadda racfaanka ayaa waxay haddana mar labaad ku xukuntay dil toogasho ah midda aan ka xumaada taas weey waxaana uga xumaaday maxkamad u dhashan waayo ummadda Soomaaliyeed cadaaladna loogu dhiso inay wax ugu qabato laakiin wax ku shubasho ah meesha aniga iga muuqdo oo ku shubasho ah maxkamaddu waxa la rabaa wax cad oo sidii maanta isku caddahay wax walba oo ugu jeedid sida wadadaas aad ugu jeedo kala ah ayaa maxkamaddu xukumi kartaa marqaatiguna oo caday kara laakiin laba qof oo qol iskula jirtay oo qof gubaal la arkay qofkii kale oo dhaawacan asna la arkay oo gacmihii deermeen xaaladaas wax ay tahay alla nagu ma og inkaas hadii maanta maxkamaddu ta xukunto ay shaqaalu disho waxa la yiri ninka midda taagan aan ka talin midda soo socotana kama taliyeen middaas mid ka xun hadeer gabadh iyo wiil isdilay oo la isku eedahay waa isdileen ayay xaaladdu taaganta mid ka xun oo awaaqib dambe iyo magac dambe reebta ka imaan doonto waxaana mas'uuliyadeeda qaadaa dadka maanta midaan ka shaqeeyay mas'uuliyadeeda qaadi doonto shaqaalay walaalayaal gabadhii waa dhimatay hooyo dhimatay ahayd adinkana gabadhiini oo dhimatay ahayd magteediyo 3 ujibaar laga qaatay gabdhaha kontana alla ka xugmiyay 200 qaatay 3 ayadii loo jibaar 200 laga qaatay magti gabadha ahaad ku daawooba raalli ku ahaad shaqaal waa diidaalay shaqaalna maaha wax diiday waa ummad garabka uga jirta oo habar gidar waxaad ka gooy kartay ka gooy alla gali shaqaal adan warkaas waa diida ma qabo sababtoo ah anagii shaqaal waligeena isku dhimaynay isku dhaawacmaynay kana qadaabtami jir qasqaas iyo kaaga kicimaahay qofka iidil lama dhax u jir dada ka shaqeeyaha dadkaas shaqaalo ma arag anagu soo waa u jeedna duluna ka shaqeeyaha ummadaas waxaan leeyahay maanta qofkii arintaas ka taliya oo ninkaas inuu la dilo ka shaqeeyo midda ka xun oo ka imaan doonta horta ha ka taliyo meesha cirib iyo saandhiga haybsha cali waadi array iyo cambuura yaqaan tala ariliyooni meesha cirib iyo saandhigi doonta haybsha cali waadi arinteeda ugu soo dhacdo meesha awaaqibta reebtay cirqa aan dhowrna waa horta bal miday reebto aan ogaahina kan waxa uu ka dhashay nimanka habar gidir la yiraahdo oo muslim iyo gaalo qof aan aqoon ogsan jirin oo ka dhashay gaal Mareykan oo jooga geesta adduunka waa yaqaan habar gidir muslim joogana iska badaa nimankaas ka dhashay hadana nimanka ugu sii adag oo aan qoslin oo goosaha aan kala qaadin oo Salmaan la yiraahdo ka dhashay war maalinay maantay ay nin joogtay gabar joogtay hadii laga tali waayo maalinkay boqolaal noqoto miya laga tali doonaa arintaas anu waxaan leeyahay dib ha looga laabto maxkamaddu ha ka fiirsato dadka wax garta ha ka fiirsadeen mas'uuliyiintu ha ogaato ha fiirida arintaas sidii kale gabadhaas looga xaajo karo ama cidaas loo xalli karo ha loo xalliyo waxa soo haray nimanka la shaqaale anaga idinka waa isku kana madax badneeyay indhihiisa hadaan arka waa loo argoof ay noota way maqle arintaas laga laabto shaqaal waxa ka laabato hawiyaha kale iyo daaroodka iyo arrimaha dadka ka shaqeeyaha waa ka laabteen dadka mas'uuliyadda haayo ha ka laabto arintaas xal nabadgelyo lagu soo dabaalan leh habar gidir waxa ay dib soo martay iyo waxay halgan soo martay ummado badan amaantay ku daaqaaho dhulka ku jooga shaqaashan hadir kamid ah ninkaana loo qasqaas ninkaana ninkii u dhimaayay waayo oo halganka ka soo bilaabay baxdo si maraa kismaayo intaasna islahay dhulka hawiye ku nool yahay nadiif si hawiye nabadgelyo ugu noolaad ayadii gadaalna lagu soo celshay way maqle shaqaalana waxaan leenahay niman walaalahana waaye nimankan u halgamayna waaye nimankan dhulka u baneeyayna oo lahayn soo dhawaado waaye haddii anagii hoos ma ugu soo laabato ummad kale shidaal ka soo qaadatay ay noogu soo laabat haddee xamuud sabri wuxuu yiri irti heerigii ku gubta wuxuu geel u sheegay uu yaqaana ninka habar gidirta oo amaanta leeyahay tiirkan ku xaraynaa waa toogayna ka joogan leena shaqaal waa la eeda war shaqaal yaa la taliy war yaa nimanka qabashadooda laha war yaa la talsha maanta ay tale la gudboonta markii biri 30 ama 20 ama 40 taala la arko yaa dil ma naqaan horta ayaga xasuusad doona rag badan oo maanta nool sariiraha ku jiifo baabuur cad ku raaxaysa
يا أقرأ صعد ونكاس سبب نقدونا ما تطير كل الشغال وض سببه النقاء هذا نوع الشغال وحن كلات طلع وكلات طلع هذا إني ما وح مقلايهين نكاس جيت كفر كبردين عن كود حاجونا كلات طلع ده جديدان واقبت يرتي عرق عن دور لمن شقال شقيها ولا فها يريو هويها صادرة أو لكوا وين كتشبشة لفمرود أيقال كتشبشة دارود هو والدارود وأنا أجه تاس أنا أجه أنا حن أجه العيب هوية إنه دارود كبحان أجه سيد الله يكره يهل بقابك سويت هيكره يسوي يلكره سيد قلبيتك أفريقيان كي ضدك سوي عربت يوحد سوي درا يان إنه هويها سويت شباب أنا أجه شقال هذا واحد وضع دارود وتوكتله يا وأحيانا سلسلة وريكتو هالكاس لوجها دارود لقش واي waxa maanta shaqaal saas ka siya ninka noo xiray waa toogayna uleeyihiin waligeeda dadku isku dhimaayay kana daawobay war shay qaal ya daarod in lubin war qolada in la soo talidaysa in lubin war beentan in soo sheeg ha qaadanina war ninka geedka ka fura wallahi billahi tallahi mid ka xunay ay dhale hal laga laabto boqolkiiba boqol hal laga laabto hadii la diido بل أواقبت إرهابتي وعراقا عن دورنا أحمد محمد هدي أنا تصان ليه والسلام عليكم وهدي نيدت كاسي قصة واعيل أتر حلقان إلى دقاقة هذانيك يا والله بقلال نحلي بتنيك أجيتك صفرا ريا ما استاجن هدي أنه هبير جدير معنيك صوّضن يا نقول لك يا وأن دقاقنا بحلقان صاحب هدي أنا تمنقول هداه الأخران كدقاقنا ومغلى وحان لي يا بنا دولة الصومالية محكمة عدالة كرسورينتا انت waxa garata hadda geeda waxa ku xilay wiil gabar gubay shalana waxaan qadka ka arkay nin taqtara oo asagoo aan badaho si xoogaa xanuun u haayo niman soo qabteen oo naaga loo dhiibay oo la leeyahay laba ragcad sunnaadku waa lagu qaarajaa dadkii saas yeelay wax u socda iyo wax la soo qabtay iyo wax maxkamad taaga midna lama arko wiil gabar gubayna waxa leeyahay intaas ummadaha la isugu keenay war fiiriyo ay wala toogahay maxkamadu taagan yahay saas yeelay horta midaas waxay la muuqataa habar gidir nacaybka ahay u muuqataa oo habar gidir nacaybku taasoo ku tusaa ninkii shal habar gidir oo reer saacado layla kas ay tooga naagaha laga adeejiyo nimankii dhahay anigu dilmeen anigu ka shaqeeyay inta u soo qabteen wax ka hadla iyo wax soo qabtay iyo dadkii saas wax maxkamad soo taagay dawladda Soomaaliya iyo dadka wax garta iyo maxkamadda ruuxadeeda hal qof oo ninkii soo dadkii hal soo qabtay hal keeno oo maxkamad soo taagay ma ay ragun ninkaana illa waxa la sii raadayay baxdo iyo Salmaan Bartankiis la sii gooba inta xamar ka soo carab ay maqle kuwii dogob saas dar shal ku yeelayaan wax ka qabaa lama arko wariyada meesha habar gidir nacaybkeeda ka muuqdee cadaaladu kama muuqato صح أهرين كمان مغطى وحائل صار الشقال وحال يري ننا كورين ننا كوفرين يوصل كورين اللي ننا بريك الدفاعين يوصل ما تعال كورين قال كنيك كورين إنه كعب حكرها بريك ما تعال كان كورين بريها كعب أمه أنت أصلا شقال عن ليه وحال صاهر أنت ما أنت عنك الله قفك أي نبي أو هبر جديره أو كحل وأرنتاس كحل oo habar gidir ah oo dhiig habar gidir oo ku jiro arintan si sheer gareeyo warkiyaas hadda halkay la gaarsiiyo sheerta hatta meel walba hal la geeyo waa qofkii ka xun arintaas waxa la soo qabtay shamuuri marqaatiyo wax ka jira lama arko baabuuran saarnaayo ninka soo shidaal si doonaha arkay asoo gudbana waa arkay maxkamadu hadda ninka marqaatiyo furo anoo gaari ku dhax qaylaha wax saga dhax isticmaala mandooriye oo ninku siina gudbasoona gudbay waxaas marqaati ma warqofkii habar gidur arintaas ka xun warkayga sheer garay si fagay meel walba gaarsii cali macallin oo la leeyahay maanta waa la xukumay oo dil toogashaha tiirka loo wadaa iskoolka la sheegay magaciisa iskool bulsiye miyo wax la leeyahay waa loo wadaa ikin bal tageeyo ku toogto amarkaas fuliye bal ninkaas la ogaado awanimo hataa meesha joogtid kabra kugu galin ninka halaaba maahan aniga nin habar gidur maahi kaamiradan iga duniyo iga daminiyo baash